بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواد صار سوفتوير وكورس كانت حناها كسابسن لينكس 10 كيسي تضباط واحد الناس عود سيني أنا أحمد إبراهيم واحد يغلص حرير كرتان إيميل كيجا ahmedkayd 01@gmail.com سيب جودنا واحد نغلص حرير كرتان ويب سايت كيجا saarsoftware.com إمكان سوق عندنا أوبنتو 10 كمان طبعا كل إيجنا سيدا لوجو دوبو سيدا لوجو دوبو configuration لوجو سمايو وين وحوي software ku sahlaya inaad ku duubtid software-rada .exe-ga ah ama software-rada ay leedahay Microsoft Windows Linux ama gaar ahaan Ubuntu waxa weeye layer buu ku sameynayaa waa software ku sameynaya layer u dhaxeeya Ubuntu Linux iyo Windows softwares imika hadaad aragtid Notepad++ kan haddii aan doon ku duub waa software.exe marka waxaan sameynaa haddaan isna Notepad kan isticmaalo inagoo joogna Linux ama Ubuntu haddaan double click siino dabcan ma shaqeynayo error ayuu soo saarayaa sababtoo ah software-rada Windows kuma shaqeeyaan Ubuntu marka waxaan sameynaa software-ka ay layer-ka inoo sahlaya sameynaya inaan ku duubno software-rada .exe-ga ama software-rada Windows-ka inaan ku duubno Ubuntu Linux ayaan ku duubaynaa Ubuntu-geena waxaan taabanayaa Ctrl+Alt+T oo terminalka isoo kicinaysa ayaan terminalka soo kicinaya dadna waxaan leeyahay code-kan ayaan ku qorayaa terminalka si aan ugu duubo dabcan halkan waan tagi karnaa waxaan ka wadaa software waan tagi karnaa halkan hadaan waan ku qorno waan kaga soo duubi karnaa laakiin waxaan doonaynaa mar walba inaan familiar ku noqono terminalka marka waxaan ku qoraynaa halkan waxaan leenahay sudo add apt repository pba wine /wine builds then waxaan leenahay enter marka waxaan leenahay sudo apt get update when update garana systemka update kayu wada u dhameeyo waxaan leenahay marka imikana sudo apt get install -- install recommends wine hq - develop enter ayaan leenahay waxaan leenahay yes dadna enter baan leenahay waan sugaynaa dadna intuu installation-ka sameynayo weli installation-ka ayuu wadaa waan sugaynaa installation gabagaba ayuu hadda ku dhow yahay installation-kii wuu dhamaaday marka hadda waxaan ku sameynaynaa configuration waxaan qoraynaa wine config then waxaan ku duubaynaa packages yaryar oo la socda wine-ka install baan leenahay
anigu waxaan isticmaalayaa firmware laga yaabo computerkiina haddaad caadi ugu duubtaan ubuntuga inuu sidan ka dheereeyo inkastoo ay ku xidhan tahay mashiinkaaga awoodiisa. kan waxaan leenahay install. waan sugaynaa. waxaan leenahay kana install. waa 3 package oo package ugu dambeeyay filayo. waa ka dhamaaday. one configuration key waxaan halka ka dooranaa Windows 7 طبعا waxaad ka dooran kartaa ilaa Windows 10 baa ku jirta kana waxaan dooranayaa Windows 7 aad eegi kartaa halkan waxaan leeyahay apply okay marka sida apply okay yiraahdo software kan yiraahdo halkan yaalay aan isku daynaa balan ku duubno right click baan leenahay deedna open with baan leenahay one Windows program loader command click siinayna sida jeed buu soo kacay software-ka deedna waxaan leenahay okay deedna waxaan leenahay next agree next install. software kan sida loo socotidba waa software loogu talagalay Windows platform waxaan imika inuu uga shaqeynayaa Ubuntu waxaan inoo sahlay wine waxaan leenahay finish to launch aad jeeda haddaan control n idhaahdo waa kaas aynu ku duubnay software kan loogu talagalay Windows platform Ubuntu. عشان ku xigeentaan isku arki doono. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.